14 Oktoobar 2017 waxaa dhacay xasuuqii ugu weynaa Soomaaliya qarnigii 21aad ahaana kii labaad ee dunida kadib qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay Mareykanka 11 September 2001. halkaan u soconay ee ah sidee ay u maareysay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyada ikhtisaas u leh qaadista dacwooyinka argagixisada dhacda ay dhibanayaal u wada yihiin shacabka Soomaaliyeed. 2 sano kadib abukaata Cabdiwaaxid Cismaan Xaaji oo kamid ahaa 14 qareen oo dhacdadaasi ku difaacay eedeysanayaasha qaarkood ayaan weydiinay sida uu ugu dhiiraday difaaca dad loo haysto xasuuqii Zoobe iyo haddii ay jiraan falcelino uu kala kulmay. kayskii markaa is hordhigay go'aan ku gaaray inaan difaaco dhibaatada marka geesinimada u yeeshay inaan geeska difaaco dhibaatada marka xoog badneed waxay ugu dhacday marka go'aan ku gaaray inaan difaaco maxaa yeelay shacbigi asxaabti qaraabadi xaaskayga xataa waa ila dagaashay dad fara badan ila dagaalay maxkamadda maalintii waa ka sheegnay oo yiri sidee u difaaci kartaa dadka mas'uul ah arintaas. intii ay socotay dacwadaas ayaa waxyaabaha kale ee hareeriyay kiiska 14 Oktoobar kamid ahaa in la dilay maalin kadib fadhigii labaad ee dhageysiga dacwadda xasuuqii Zoobe labadii bishii koowaad 2018 Allah u naxariistay Cali Nuur Shuute oo ahaa aabaha Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ahaana gudoomiyihii dacwadda. waxa uu qabay Cabdiwaaxid xilligaas in waxa kaliya ay sugayaan ay ahayd dil toogasho ah laakiin wax ka duwan arrintaasi ayaa dhacay. dad fara badan oo dacwadda dhageysanay oo dhinacyadii waxay yireen waa noo dhamaatay xal aabiisa la dilay maanta waa naga aarsana waxay filayeen inuu argooso dhacay kulli nimankii dacwadii waxay yireen waa iska sabarna xal aabiisa Shuute ma la dilay waa noo dhamaatay maanta laakiin taariikhda intaan loo yarahay 37 sano weligay ma arkin go'aanka halka ka soo baxay go'aanka wuxuu ahay go'aan ay daneynayeen intaas oo qof Soomaali dibadda joogto gudaha ku nool meel kasta joogto qaramada midoob wadamada ajnabiga maxaa dhici doona go'aankaas sidoo noqon doona go'aan la yaab leh ah asagoo Allah naxariista aabiis inta oo geesinimo ku yeestay hal saaciibar waa taagnaa meesha gudoomiyaha hal saaciibar subaxnimo taagnaa garsooraha ikhtiyaarka lahay ma fiirinin dawladda Soomaaliyeed maxay ku dhahaysaa ninka dadka qaarkiis dadka mas'uuliyadda ka sareeya ka baqaan xukunka ay soo saarayaan waxay leeyihiin dawladda ma qancina shacabka ma qancina war Soomaaliyeed ma qancina walaalaha ma qancina aabbahood la dilay ma qancina dadkan dhibanayaashii oo inta qofood laga dilay waa malay kartaa ma qanci doona go'aanka halkaas ka soo baxo marka go'aankiiba wuxuu ku saleysnaan karaa rabitaanka dadkaas kale military waa laga sareeyaa taliyaha ka cabsanaa taliyaha ciidanku ka cabsanaa wasiirka gaashaandhigga ka baqa madaxweynaha joogo ra'iisul wasaaraha joogo cidiya joogto cidaas oo dhan waxa isdheeyna marka go'aankan maadaama go'aan culus yahay dadkan waa la iqaaba fursad ay leeyihiin mala laakiin aniga qareen ahaan waajibkeena gudanay go'aankii ka soo baxay marka go'aan la yaab leh ahay go'aan ee ka suurooban waqtigan xaadirka qof Soomaali oo garsoore oo ka suurooban oo ahay go'aan qofka bini aadamka maskaxdiisa galiis sidee ku qancinaysaa 14 Oktoobar oo inta dhibaato dhacday in dadkii lagu toonsanay qaar ka mid la sii daayay geesinimo u baahantay. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaan weydiinay sida uu ku yimid go'aanka kiiskii 14 Oktoobar uu kaga dhawaaqay 6 bishii 2018 Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la hor keenay kiiska 14 Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska Zoobe. maxkamaddu waxay kiiskaas u maamushay si cadaalad ah oo daahfuran waxay maxkamaddu ogolaatay in dhammaan dhageysiga garmaqalada la xiriira kiiska 14 Oktoobar uu noqdaa mid furan oo ay dadweynuhu ka soo qayb gali karaan haddii ahaa lahaayeen ehelada dhibanayaashii dhibtu gaartay iyo ehelada eedeysanayaashii lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha ee qaraxi dhacay. sidoo kale maxkamaddu waxay fursad ku filan siisay dhinacyadii dacwada oo kala ahaa eedeynta iyo difaaca. dhinaca eedeynta waxaa joogay xeelalihii guud ee ciidamada qalabka sida sidoo kale dhinaca difaaca waxaa joogay qareeno gaaraya 14 qareen
oo ka difaacaya eedeysanayaasha eedda loo jeediyey. maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama ay ahayd qoortii u dhexaysay labada dhinac waxay ka fogaatay in go-aanka ka soo baxaya maxkamadda lagu hogaamiyo ra'yul caamkii waagaas jiray oo ay ka muuqatay xamaasad fara badan. maxkamaddu waxay xukunka ay soo saartay ku salaysay sharciga iyo qiimeynta cadeymihii la hor keenay, iyadoo xukun ku riday ciddii lagu helay kulug lahaanshaha qaraxaasi. sidoo kale maxkamaddu waxay ku dhiiratay in ay sii dayso ciddii lagu waayey ee kulug lahaanshaha qaraxii dhacay ee dhibaatadii dhacday. xasan aadan isxaaq oo magaciisa afgarashadu yahay cabdinaasir jeeri waxa uu isku duwo ka ahaa mashaqadii dhacday. waxa ay u dan lahaayeen burburinta garoonka aadan cadde. nasiib xumo natiijo aan lama hadin ayuu bulshada kaga tegey. tv-ga qaranka ayaa fursad u helay muuqa xasan aadan isxaaq oo ka sheekeynaya qorshahooda. kii ay soo wacay markii kii mootada ay soo wacay hay u dhahnayo xagee joogtay u dhahay se wax u jiraan ay horta markii soo wacay qarax maxaa waa yiri qaraxan iyo gaariga weynaa way anagii saarna waxa yiri gaari wala soo xabadeeyay meel ka ordan waa gaari meesha dhoobaneed marka ka degaan yiri ka degtay iyo marka badan oo taabtay manana gaariga waa qarxiyay u dhahay wadada qarxi kale aniga ka taagan dadka ku dhex jiro ayaa qof marka dharaacda gaariga tasaastay dadka gacmaha ka soo tagay wareega gaarigan ayaa watay markaas ayaan gaarigan aa wata kaali u dhahay qof baakinkii qaad dheer raba umalinay waa u imid waraga ka imaatay u dhahay marka xamarweyna ka imaaday u dhahay waa baarama muranay xamarweyneeda xagee ka deganay u dhahay uma sheegin hor waan doogay warka xagee ka imaad marka waa muranay waa ka shakiyay furaha kan gaariga furahiiskan u dhahay marka furaha qaadan way wadeen andahay waabeega ma xirin way wadeen wadada taas oo marnay telefoonkan markaas waan waday way soo wacayeen markii inaan qabto oo barnaamijkooda aan galan marabin ilaa haday waa fashilmaysaa moogtay marka qaar marka waa dareemaan in aan gacan lagu hayo oo la qabtay dareemaan ka bacdi marka gaariga waceen gaariga soo waceen si ku qariyeen marka sanad kadib isla maalintii xasuuqii Zoobe ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa. taariikhdu markay ahayd 6 bishii 2018 dambiile shabaab xasan aadan isaaq cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka kala dhacay isgoyska Zoobe iyo wadada danwadaagaha 14 Oktoobar 2017. maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha 10aad 2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq. Abduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.